sidaynu ka warqabno waxa dawladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay 5 sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda dacwadaas meel fiican bay maraysaa waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go'aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto annagu mar walba dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya waxa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aan uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dawladda Kenya oo ku saabsan waatii ay ogeedeen 9 September ayaanu u ballansanayn iyadoo aanu istiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed marka hadda waatii loo ballamiyay 4 bisha annaga wali go'aanka iyagu waxa uu yahay taageernahayna dib u dhigaas maxkamaddu adduunka iyada go'aanka iska lahayd dib u dhigtay oo 4 bisha ayaa go'aanka iyaga difaacayaga iyo ku talagalka iyagu yahay taa inaanu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taageernaa kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 November in la kordhiyo dawladda Kenya waxay codsatay 12 bilood waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysaa wax iyadoo yaala kiisku waxa uu ku jira maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dawladda aan isla wada ogni dawladuna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waana mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu in dalbato annaga haddaan nahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya waxa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dawladda Kenya oo doodii ay keeneen haddana waxa nala siiyay annaga inaan ka jawaabno jawaabteedu waa gudbinay doodeedu waa gudbinay waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa ka soo bixi doona maxkamadda annagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taaganahay 4 November waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac walba la yimaado inuu u bisil yahay waa inaan maxkamadda cadaaladda adduunka ka dhursugnaa annagu waa ku kalsoonahay mar walba annagu mowqifkayagu waa 4 bisha November ayaanu ku adkaysano kordhintii labaad ay ahayd dawladda Kenya 12 bilood bay codsatay annagu waxaanu ku adkaysanay doodeediina ku jeedinay in 4 November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino go'aanka kama dambaysta ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinacba waa la dhageystay aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto